degmada Buuhoodle xarunta gobolka Ciiday waxay maanta ka mid ahayd magaalooyinka Soomaalidu ay degto ee maanta Siwayn looga oogay salaadii Ciid Fitriga guud ahaan shacabka Buuhoodle ayaa si iskumada saaka salaadii Ciid waxay ugu tukadeen garoonka weyn ee kubadda cagta ee Xabado Stadium Football salaada waxa kala qayb galay isimada gobolka Ciiday cuqaashay waxgaradka deegaanka Buuhoodle oo midaysan salaadii Ciid kadib waxaan la kulmay qaar kamid ah waxgaradka deegaanka Buuhoodle ugu horeeyay Suldaan Saciid Ismaan Cali qaar kamid ah qurbo joogta deegaanka Buuhoodle iyo mas'uuliyiin kale dhinaca kale gudoomiyaha ganacsatada gobolka Ciiday Mukhtaar Cabdilaahi Cawl internet isla markaana maamulaha Carbo Bilan iyo hambalyo u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo macaamiishii carwadiisa waxaan ugu bishaareeyay munaasabada Ciid Fitriga الله أكبر ولله الحمد وهنيئا لكم أيها المسلمون قيامكم في هذا الشهر المبارك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا إلهي عبسدي وصومي بشهر رمضان إن إلهي كأقبل عبسدا إن إلهي جنة وقدره إن نبي محمد إلهي الراعي إلهي صار كبرينا إلهي محمد كبرينا ضد الإسلام كعراضها ciiday tahayba oraadaha dadka islaamka haystana allaha ka jabiyo khaasatan taanaga gudaha iyaga ka taagan maanta ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaan dad dambe nagaga dhimanna ilaahay baktiyo aamiin قرادها مالور بلغ شيغيو الله نغا سيدي سلطان كيوري اما صلادينتي ku ducaysay baan mar raacay qolaada Allah naga qabto islinka dadka wada dhashay ee walaalaha siyaasiyiin baa isku dirtay waxa salaamaya muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid mubarak baan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida waxaan horta u tacsiyeenayaa dadka ku nool gobolka Sool iyo nawaaxigiisa ee lagu ciyaarayo maatada ee haweenka ee maalin walba la leenayo waxaan leeyahay intii dhawaateena samri ilaahay imaan baan ugu rajaynayaa ilaahay inuu qasiyo ummadda aakhirana jannah uu waxaynayaa insha Allah billahi karim ilaahay ka dhigo way difaacayeen gabdhaha maalin walba laga oohinayo la baabiinayo iyo maatada goobta dad Soomaaliyeed baad garan walaalihiina diristihiin xaq dhowr ba isku leeyihiin ixtiraam ba isku leeyihiin dhibaatada maalin walba loo geysanayo deetiina inagu raali kama ahan waa ka xumaanahay dhibaatada idin geysanay maatadiina iyo dumarkiina iyo carruurtiina guriga iyo deegaankiina lagu sameeyo raali kama ahaaneen walaalayaal waxaan leeyahay dadkiina dhulka degan ka hadla arrinka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ciidda oo aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo u mahad celinaynaa macaamiishii ku xidhnayd Carbo Bilan intii ay socotay muddada Ramadaanta ee ay gadanayeen maxaa yeelay agabka ciidda annaguna waxaan u keenay wax kasta oo ay ciidda ugu diyaar garoobayeen oo ahayd maxaa yeelay agabkii ciidda ay ugu diyaar garoobayeen dharkii ay nooc yaal dhammaan dad yaryar iyo dad waaweyn oo tayo leh oo fiican oo qiimo macquul leh ayaan u keenay si fiican baan uga xaqabtirnay ayaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin deegaanka Buuhoodle ama gobolka Ciiday bulshada ku nool boqolka dhammaantood iyo bulshada iyo ragaba carwadan oo la yiraahdo Carbo Bilan si aad iyo aad bay mashquulsan tahay oo dhammaan adeegii bulshada ay ku ciidaysay oo dhan bay keentay si wacanna way u socotaa ilaahayna wuxuu ka barinayaa ciideeda inuu ilaahay khayr u gaarsiiyo